ما أنت ومالين مواد كستكوي وحسك درارتي هجانكي SNM وحجرتك يجورت دبلة سومالي لان أي برأكو جدون سدين إن وحي الشرع دعاي حال الدليل لقد نقضه إن نعيدي لكلا شري لقي مادو ولقوا مدوب بقعصب وأول على النمو نبض ودشر يغرى النمو لو ذليه وهو قوان تاريخها وهديان مالين تهلا جاري الهين أينان ما أنت هايبسن كرنين هل كاين تشوجدو صدني فرسانو أي اللي تشوجا دبوا رشدي سومالي لان وهاي يسوق صباحناي إنه مركل الدولة وشجنو إن قرن كني وكل سيء دي الجمياشي كلا دنبي إجباري دون كاها دبوا رادينتي إن جمهورية سومالي لان أي مركله قرن نقطه يددال كي دولة ديسكا إيو كسو كباشدة بربركي لحيا لواتنكي جون كو سقال بغولي اللحدنكي أيي جمهورية سومالي لاند قبنمدة كقادتي بغورتوية إنجريسك وهي كميدا هيد دلالكي حرية دوغو ورغاتي قارد أفريكا نيد وناك أيي غرانمداسي سومالي لاند كقلنتي وهي كدور بدي سومالي لاندين أي ولاله الصوماليا أي سيأيوه بعد دونان نمشنت الصومالية وداكتو وحيثتي شابدا سنقطي ريال الرومين كريواي ودي السعودي وحي دعي يدرو فيه لصومري ما أنت وركو تالو نقمو هايان وهانو النهي طلع شر كبر توايها وهانو حقيقة صنعي إن صوماليدو ما أنت أيوبا هندهاي إن قيب كستاق قار كيدا استحضو وهي كخلدمي waxaanu rajaynaynaa in walaalahayo ay ugu dambeynta arrinta ka garaabi doonaan inay fahmi doonaan in siyaabo kala badan wax loo wada qabsan karo waxaanu ku kalsoonahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaran madax bannaan ah inay wax badan ka qaban karto xal u helidda dhibaatada raagtay ee haysata Soomaaliya waxaanu hoggaan u nahay waxa ka khaldamay dawladnimada Soomaaliya waxaanu leenahay waaya aragnimo aanu ku caawin karno si ay dawladnimo sax ah u dhisan lahaayeen dalalka dariska iyo dunidaba waxaanu ugu baaqaynaa inay tixgeliyaan dadaalka aqoonsiga doonka ah ee Soomaaliland in laga barto casharo looga faa'iideysto nabadeynta iyo dib u dhiska dalalka burburay ee gobolka iyo qaaradaba jamhuuriyadda Soomaaliland iscaafin nabadeyn dhexdeeda ayay ku dhisatay qarannimadeeda waxay abuurtay nidaam iswaafajinaya dawladnimada casriga ah diinteena islaamka iyo dhaqankii soo jireenka ahaa ee bulshada Soomaaliland waxay qabsatay afti qaran iyo 8 doorasho oo dhammaantood xukunka si turxaan lahaana la isugu dhiibay xilkana la isku wareejiyay waxaana maanta goobta jooga madaxweynihii iga horeeyay ee xilka igu wareejiyay bila yar ka hor waxay dhisatay dhaqaale si caafimaad qabta u koraya iyo kaabayaal muhiim u ah horumarka dalkeena maanta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay buuxisay halbeeg kasta oo laga filayo qaran madax bannaan waxayna muujisay mas'uuliyad dawladnimo waxa lagu aaminay heshiisyo iskaashi iyo maalgashiyo caalami ah oo ay si buuxda uga soo baxday waajibkoodii xeerar iyo curfi caalami ah oo diidaya in jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka mid noqoto ee dunida go'aan siyaasi ah ayaa naga hortaagan aqoonsiga go'aamada siyaasiga ahina ma waaraan waxaana ku celinayaa in maanta laga gudbayo ayaa muuqata sasaakeedii arrintaas dalal badan oo dunida ka mid ah ayaa garawsaday inay dano siyaasadeed amni iyo dhaqaale la wadaagi karaan jamhuuriyadda Soomaaliland dalalkaas waanu soo dhaweynaynaa la shaqaynaynaa cid walba
oo waxay inala qabsanaysaa gacmo furan baynu ku soo dhaweynaynaa iyo dal xasiloon oo dadkiisu diyaar u yihiin horumar xukuumaddaydu waxay diyaar u tahay in saaxiibada deriskeenala ah iyo dunida kaleba aynu ka wada faa'iidaysanno khayraadka dabiiciga ah ee alla inagu galladay dalkeenna si waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo danaha Soomaaliland dhulka iyaga istiraatiijiyada badan leh hawadayada badayada iyo dekedaha iyaga madaarada iyo khayraadka dabiiciga ah ee aanu hodanka ku nahay dhammaantood annaga gacanta ku haysana cid nala wadaagtaa ma jirto maamulkooda iyo taladooda midna maanta ma jiro dal adduunka ka mid ah ama urur caalami ah oo aan ogeyn xaqiiqada ah in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay waaqici iyo run jirta de facto state waxaan ku faraxsanahay inay dhammaantood xogogaal u yihiin in cidda Kenya ay heshiis kala geli karaan ay tahay xukuumadda Soomaaliland waxaa kaloo bogaadinaya warba joogta jamhuuriyadda Soomaaliland oo taageero joogto ah ku leh kobaca iyo dhaqaalaha dalka lacagaha ay xawaaladaha ku soo diraan doodaha iyo abaabulada aqoonsi raadis ay ka wadaan dalalka ay ku nool yihiin iyo maalgashiyada ay dalka ku sameeyeen waxay si weyn u caawiyeen horumarka dhaqaalaha iyo in magaca Soomaaliland ka dhex muuqdo dunida waxa naga go'an inaanu sii xoojinno kaga qayb qaadanayso marka dalka dhammaan dalalka dunida waxaan ugu baaqayaa in la joogo xilligii ay jamhuuriyadda la aqoonsan lahaa door muhiim ah ayay ka qaadan kartaa ammaanka horumarka dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika iyo badda cas waxaanu diyaar u nahay inaanu xidhiidho iskaashi iyo saaxiibtinimo la yeelano dalalka deriska aynu ku nahay gobolka Geeska Afrika iyo badda cas waxaanu diyaar u nahay inaanu kaalin macnale ka qaadano arrimaha gobolka ay ka mid yihiin ammaanka iyo isdhexgalka dhaqaalaha waxaanu mahadnaqayaa dalalka nala yeeshay xidhiidhka saaxiibtinimo amni iyo dhaqaale kuwaasoo ka mid yihiin dalka Itoobiya imaaraadka carabta ingiriiska maraykanka Djibouti iyo Taiwan iyo Kenya munaasabadda xuska qarannimada Soomaaliland awgeed waxaan dhammaan codsi aqoon raadis ah u kala diray madaxweynayaasha ra'iisul wasaareyaasha boqorrada amiirada iyo dhammaan hogaamiyeyaasha 195 dal ee xubnaha ka ah ama goobjoogayaal ka ah qaramada midoobay shalaydaana la gaarsiiyay codsigaas muwaadin kasta oo Somalilander ah waxaan xasuusinayaa in xuduudeena iyo jiritaanka qarankeenu uu ku dhisan yahay midnimadeena in xaaladda hadda hareeraheena iyo dunida ka jirta sida kaliya aynu kaga badbaadi karnaa ay tahay wadajir iyo iskaashi inaynu ka feejignaano kuwa doonaya inaynu qabiilooyin ama gobollo u qaybsanno badbaadinta qaranka iyo ilaalinta nabadgelyadiisu waa waajib muwaadin kasta saaran waa inaynu la shaqayno ciidamada ammaanka ee habeen iyo maalin hoggaanka oo ah ilaalinta nabadgelyada adkaynta midnimada iyo difaaca qaranka dhalinyaradu yaanay marti ka noqon iyo dhismaha qarankooda iyaga ayaa madaxda ah berrito waxaan ugu baaqayaa inay hormuud ka noqdaan la dagaalanka qabyaaladda
isdhexgalka bulshada iyo nabadaynta halabuurkooda iyo haladaygooda ayaa go'aaminaya masiirka runta ah ee qarankeena ee maanta iyo berri sidoo kale waxaan bogaadinayaa haweenka Somaliland oo ah shamaca nabadda iyo xasilloonida qaranka kaalin muhiim ah ay kaga jiraan horumarka ka soo gabashada colaadaha iyo dhismaha qaranka iyaga ayaa jaangoynaya sida ay bulshadeenu u ekaanayso mustaqbalka xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxay ka shaqaynaysaa dhiirigelinta maalgelinta iyo gudlinta hibada iyo dhismaha xirfadda haweenka ka shaqayn doonaa in haweenku ay door muuqda ku yeeshaan dhammaan dhinacyada nolosha dadweynaha walaalayaal dhammaanteen waxayna mideeya jamhuuriyadda Somaliland oo aynu wada leenahay taariikh aynu wadaagno iyo jiritaan aynu dhuun iyo dhiigba u shubnay calanka tawxiidka leh ayaa inagu wada filan oo ina deeqa xukuumaddaydu waxaa ka go'an inay xoojiso dowladnimadeenna iyo waxwadalaanshaheena siyaasadda xukuumadda wadajir iyo waxqabad waa in basaasta laga ilaaliyo hanaankeena dimuqraadiga iyo qoriisu dhiibka ah waxaan hirgelin doonaa nidaam dhaqaale iyo kaabayaal isu dheelitira dhammaan gobollada jamhuuriyadda Somaliland waxaanu sees adag u dhigi doonaa difaaca qarannimadeenna iyo in ubadkeennu dhaxal uga dhigno qaran dhidiba adag ku taagan shaqada inoo taalla ma yara waynu sugnahay awoodeennuna ma buurna laakiin warwar ma qabo maadaama waxa aynu doonaynaa inoo cad yahay jihadii saxda ahaydna aynu ku soconno waxaan ku soo koobaya oo ku soo gabagabaynaya erayada heestii abwaankayse ee uu qaaday Allah ha u naxariistee Maxamed Maxamuud Cige Busi oo ay ka mid ahaayeen Somaliland dadkayga Somaliland dalkayga dadku waa midkii Ingiriiska diray dalku waa mid qura waa hawl iyo diir diintu waa islaam cidi doorin karin dusha waxa u suran calan aan degayn Somaliland ha noolaato